Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan soo dhawaada maanta waxaan rabaa haddaa ilaahay yaraaho inaan igala hadlo sonkorowga ama maaragtay diabetes mellitus tiibada labaad waxa keeni karo waxa ay tahay sidaad ku ogaan kartid iyo maaragtay baarista iyo la dhaqmista iyo maaragtay daawooyinka loo isticmaalo iyo sidii nolosha oo maaragtay lagu sii badbaadin lahaay ayaan rabaa inaan igala hadlo marka horeeto ilaahay dhammaan maaragtay ummadda muslimiinta nabi maxamed ilaahay ka haayo dhibaatada iyo xanuunaadkaneeto adduunka ka jiro insha allahu tacaala saanay ku bilaabanaysaa marka soo dhawaada sonkorowga sidiisaba ma aragtay waxa waaye jiro waaye allah naga haayo waxay u dhigataa in ma aragtay ama ay tahay in dhiigaaga sokor badan ay ku jirto oo la dhahayo glucose sonkorowga nooca labaad tani waa sababta ma aragtay oo ah in unugyada jirkaaga oo si fiican uga jawaabin insuliinka waa hormoon oo jirkaaga ku jiro waaye oo ma aragtay oo waxa arrimahaas dhan oo ku saabsan sokorta kala xalinayo marka insuliinka hormoonkaas insuliinka lagu magacaabo wuxuu uu fiirinaya uu hubinaya markasto in ay sokor kugu filan dhiigaaga inay heli karto ayay hubinaysaa tusaale ahaan haddii aad cunto ma aragtay ama aad cabto karbonaatada waxa waaye dee waxyaalaha sokorta ku badan sida rootiga baastada macaanka buskudka ama liinta haddii aad qabto sonkorowga nooca labaad arrimahaas markaa si fiican uma socdaan sonkor aada u badan ayuu markaasito kuu sheegaya dhiigaaga inuu ku jiro taasina waxay u xun tahay jirkaaga haddii ay qaadato waqti dheer waxaa ku dhaawacmi doona sida haddii oo example aan kasoo qaato kaleeto indhahaaga wadnaha iyo keliyaha ayay dhaawaceysaa marka aada ayay jirkeena ugu daran tahay marka su-aasha xigtaa waxay noqonaysaa sidee ku ogaan kartaa marka in oo maaragtay sokortaada ay aada u kacsan tahay waxaa lagu ogaanaya maaragtay in oo kaadadaada waqtigaaseeta ay badato oon badana ku qabanayo daal miisaankaaga aada u dhici karaa badanaana waxaa kugu dhacaya maaragtay infection ama caabuq oo maaragtay dhankaadi mareenka dumarka cuncun ayaa ku bilaaban karo nimankana maaragtay yaa infection ayaa igana ku badan karaayo marka haddii oo sanooyin badan dhan oo maaragtay dhiigaaga kor oo jiro oo maaragtay sokortaada haay ay tahay mar walbo marka waxay dhaawacyo u geysan kartaa maaragtay indhahaaga iyo keliyaha neerfayaasha iyo maaragtay xididada dhiiga maro marka cawaadyo badan ayaa marka qofka kusoo kordhayo ma fahamte marka waa dhibaatooyinkaasitana waxaa kamid maaragtay indhihiio si fiican wax ooda uga arkeynin lugihiyo dareenka maaragtay ama gacmihiyo dareenka waxyar kaa tagtagayo boogag hadee kaa soo baxaan lugaha ama dhaawac jirkaaga uu soo gaaro cayuub ma reysanayaan haddii oo isheeg ood leedahay jirada maaragtay oo sokorta ay ku hayso badanaa waxaa la daris ama cudurada qofka warkaaseeto kusoo biiri karaa waxay yihiin maaragtay wadna xanuunka xididada dhiiga oo maaragtay igan dhibaatooyinkaaga imaanayo wadna istaag ama stroke cabayo isheeg ya kadibna qofka depression ama wuxuu qaadi karaa ya nafsiyan ahaan niyad jab okay marka maxaa keeno ilaahay ku sokow maxaa keeno in sokorta ay kugu dhacdo nooca labaad sonkorowga maxaa keenayo waxaa keeni karaa waxay tahay nooca labaad sonkorowga in maaragtay jirkaaga unugyada jirkaaga ay noqdaan aad wax ugu nugul maaragtay hormoonka la dhahay insuliinka kadibna si markaa sokor kugu filan markaa ma u tagayo dhiigaaga
ama unugyada maaragtay dhiig ku filan oo sokor ku filan ma gaarayo, sidaas darteedna maaragtay yaa sonkorta dhiiga ayaa aad u koreynaysa ama aad kor u ahaanaysa, u sareynayso. Waxaa kaloo markaaseeto keeni kara in oo qofka aad u buuran yahay ama aad u cayilan yahay. Waxa kaleeto macquul waxa waaye dhaxal ahaan haddaad family ahaan aad dhaxal u leedihiin sokorta, asalka ama jinsiyadda aad ka soo jeedid, taasina waxyaalo badan ayay ku shaqo leeyihiin. Marka badanaane diabetka ama sokorta tiibada labaad badanaa qofka bini'aadamka wuxuu ku dhacaa adiga 40 jir iyo wixii kasii weyn ayuu badanaa ku dhacaa. Macquul way dhacdaa in ma aragtay oo dadka dhalinyarta uu ku dhaco ayagoo da'yar, taasna waxaa keeni karo ama macquuli karo in oo qofka markuu da'da yar u yahay oo aad zaid u buuran yahay ama zaid u cayilan yahayna way dhacdaa in sokorta type 2 mellitus-ka in oo markaasita ku dhaco. Haddii marka la rabo inaa oo ma aragtay la ogaado dhakhtarka inaad sokor qabtid, dhakhtarka wuxuu ka fiirinayaa sokorta oo dhiiga ka duraya si loo ogaado inaa sonkorowga qabtid. Haddii oo ma aragtay adigoo baahan oo ama sooman oo weliba waxba aadan cunin oo subaxdii lagaa duro dhiigaaga 7 iyo wixii ka badan, waxaa waaye markaaseeto ay noqoto sokor qabtaa. Sokor ayaa qabtaa 7 iyo wixii ka badan waaye adigoo waxba cunin oo sida hurdada uga soo kacda ay tahay ama adoo sooman tahay waxba afkaaga gelinin. Marka dhiig hal maalin oo la duray ma ku ogaan kartid, soo maalmo kala duwan oo ma aragtay adoo waxba cunin sidii yaa sameynaysa maalin kala duwan aa fiirinaysa dhiigi haddii saas mar walba uu yahay. Marka waxa waa sokoraa qabtaa laga wadaa hal maalin wax ma sheegayso, waa dhowr maalmood waa in la sameeyaa. Marka tan xigtana waxa waaye sidee loola dhaqmayaa ama sidee oo lagaaga daaweyn karaa. Horta hore midda ugu horeysa waxaa muhiimad ma aragtay in aad nolol fiican aad ku noolaataa oo caafimaad leh. Ma aragtay markii lagu daaweynayo diabetka laga daaweynayo waxyaalo badan aad isku arkaysaa sida ma aragtay inuu dhiigaaga ma aragtay oo sokorta inuu hoos u dhaco, miisaankaaga inuu dhaco, inaad dareentid ma aragtay aad firfircooni inaad dareentid, dhiigaaga oo pressure-ka ma aragtay inuu hoos u dhaco. Saas taayna marka adiga sokortaada markii oo saaseeto la taxadarayo laga hortagayo ma aragtay dhibaatooyinka ayaa yaraanaya sida dhiiga xididada dhiiga oo ma aragtay dhibaatooyinkaaga dhacayo, wadne istaaga ama ma aragtay stroke waxaasita laga hortagaya. Marka haddaa caafimaad aad ku noolaatid ma aragtay yaa oo daawooyinkan wax walba si fudud u qaadatid waxba laga yaabaa inay markaasita ma aragtay aad ka hortagtid sida ma aragtay daawooyin badan iyo waxaasito in lagu qoro. Marka maalintii horta waxaa muhiim ah cunadaada maalintii 3 waqti inaa cunto caafimaad inaa cuntid. Adi maalintii 4 jeer ka badan inaadan adiga ma aragtay waxyaalaha cuntada intaan la gaarin, waxyaalaha sida buskudka ama fruutada waxaasito 4 mar ka badan inaadan sameynin. Inoo khudaar badan aa cuntid, fruuto badan iyo waxyaalaha ma aragtay qamadiga iyo waxa ka sameysan digirta iyo maxaa la dhahaa looska iyo waxyaalaha. Waxaa kaloo muhiim ah in wiigi mar inaad cunto ma aragtay malaay ka midka dufinta leh, ma aragtay sida salmoonaha oo kaleeto, inaa cuntid sheeg waxyaalo oo ku yar yahay ma aragtay waxyaalaha laga sameeyay burka, rootiga caad iyo buskudka caad iyo cusbo wax laga sameeyay ma aragtay inaad aad u yareysid oodan badsanin. Inaad badsanin ma aragtay hilibka gaduudan iyo ma aragtay iyo waxyaalahaas inaadan badsanin. Ma aragtay inaa isticmaashid waxyaalaha caanaha iyo waxaa ka sameysan oo bilaa sokor la'aan sida yogurt oo kaleeto. Maalintii inaa cabtid litri bar ilaa 2 tiro biyo caadi ah. Shaahi iyo ma aragtay kafee waa cabi kartaa bilaa sokor la'aan.
waxaaba sida cabitaanka baakadaha ku jiro oo kaleeto inaa iska ilaalisaa furtada ka samaysan maxaa yeelay sokor badan ayaa ku jirto marka dadaal oo xoogan ayaa loo baahan yahay maasha allah tabaaraka allah waxaa kaleeto muhiim ah teeda kaleeto in aad maaragtay dhaqdhaqaaq badan aad samaysid ama socdaal badan inaad samaysid ugu yaraan maalintii haddaa awoodid xataa maaragtay nus sac maalintii inaa maaragtay si fiican isboortiga u qayb gashid oo dhidid badan aa u keentidood orodid fiican nuskaas sac in maaragtay aad dareentid aad neef tuurtid ayaa loo baahan yahay tan xigta waxaan rabaa inaan ka hadlo daawooyinka inaan ka hadlo waxaa kooda horeeto waxaa lagu siinayaa maaragtay in oo sokortaada la dejiyo sida maadaama la rabo kaniiniga la dhahayo metformin ayaa lagu siinayaa marka haddii oo markaaseeto sokortaada mar walba marka adoo kaniiniyaashaad qaadana weli hay ee iska tahay marka waxaa lagu qorayaa gliclazida kaniini la dhahayo lagu qorayaa weli hadduu markaaseeto oy sokortaada koreyso insulina lagu qoraya insulinkaaseeto marka waa hormoonkaaseeto waa inaa isdurtaa saasay tahayne ma joojinaysid maaragtay dhaqdhaqaaqii badnaay iyo isboortigii ma joojinaysid marka iyo maaragtay noloshiyo cunto caafimaad ah ku noolaato waa muhiim taasna waa mar walba waad wadaysaa marka tan xigtana maaragta xaaladaada 3 bil kasto dhakhtarka wuu kula soconaya control ayuu sameynayaa caafimaadkaaga laga wareysanaya waxaa lagula talinaya cuntooyinka cuni kartaa lagula talinaya maxaa la dhahaa waxaa qofka dietist ayaa lagu diri karaa oo kuu sheegaya maaragta qaybta cuntada waxaas dietistaha qaabilsan sidoo kaleeto waxaa muhiim ah waqtiga oo bisha ramadaan ama waqtiga aad soomaysid ilaan sokortaada waxaaga dhan way isbedelaysaa dhakhtarka inaad kala hadashid sida kaniiniyaashaada iyo daawooyinkaaga lala socdo teeda kaleeto waxaa muhiim ah inaad dhakhtarkaaga kala hadasho haddaad soomaysid in uu maaragta daawooyinkaaga dhakhtarka uu kula socdo maadaama maaragta dhiigaaga marka uu kor iyo hoos iyo waxa uu aadayaa haddaa fasax aadaysid wadamo kaleeto jawi bedelan iyo waxa kale haddaa aadaysid cunada dugan wax walbo jawiga inaad dhakhtarka maaragta aad u sheegtaa si oo maaragta daawooyinkaaga uu before inuu wax ka bedeli karo teeda kaleeto waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu